wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamul goboleedka Hirshabelle Mudane Cabdiqani Cabdullaahi Hilowle Kenya ayaa maanta degmada Buulaburte ka furay tartan kubadda cagta ah oo u dhaxeeya xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Buulaburte. munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha garoonka kubadda cagta Buulaburte ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha dhalinyarada kan ciyaaraha, macallimiinta hogaaminaysa kooxaha, dadweyne iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada Buulaburte. sidoo kale macallimiinta kooxaha kubadda cagta ee degmada Buulaburte ayaa loo furay tababar kor loogu qaaday tayadooda aqooneed ee dhanka ciyaaraha, iyadoona isla munaasabadaasi loogu qeybiyay qalab sportis oo 10 kooxood ah ka hor inta aan maanta la daahfurin tartanka kubadda cagta. tartanka kubadda cagta ee laga daahfuray Buulaburte ayaa kooxaha ka qaybgalaya waxa ay gaarayaan ilaa 10 kooxood oo ka kala socota xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Buulaburte. wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamul goboleedka Hirshabelle Cabdiqani Cabdullaahi Jenyo oo ka hadlay furitaanka tartanka iyo tababarka macallimiinta ayaa sheegay in fursad ay u tahay dhalinyarada ku nool degmada Buulaburte maadaama loo qabtay tartan kubadda cagta ah oo baaxad weyn. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan bahda ku abtirsata ama shacabka reer Hirshabelle, waxaan magaalada Buulaburte ku furnay tartan kubadda cagta ah oo socon doona muddo yar oo ah 10 kooxood. waxaana iska kaashaday wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska iyo maamulka degmada Buulaburte. tartankaasoo dhalinyarada magaalada Buulaburte ay uga faa'iideysan doonaan waxyaalaha xun inuu ka dheereeyo isdhexgalka bulshada. runtii ciyaarahan juhdi badan ayay wasaaradda gelisay ayadoo kaashanaysa maamulka degmada Buulaburte. waxaana filayaa in ciyaarahaas markay dhammaadaan ummadaas tababar kala sii. waxaa kaloo jiray barnaamij la socday tartanka oo ahaa tababar la siiyey macallimiinta, garsoorka iyo maamulka. waxaana aad ugu mahad celinayaa maamulka degmada Buulaburte oo aad xagga nagala shaqeeya wasaarad ahaan, xagga nabadgelyada, xagga maamulka. waxaana ilaahay ka baryayaa inuu si wanaagsan noogu dhammeeyo ayadoo barnaamijkan ay wasaaradda ka suubin doonto degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka dhan. tartanka iyo tababarka ciyaaraha waxaa iska kaashaday wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Hirshabelle iyo maamulka degmada Buulaburte. Cabdisalaan Maxamed Ibraahin, Cabdisalaan Habi, Somali News, Buulaburte.